markaynu dhahno laabfayoobidu islaamka ama diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey guud ahaan dadka muuminiinta bay walaalaysaa waana isku xidhaa calaaqa ijtimaaciyaba u yeeshaa waxaa ka baxa wixii colaad iyo uurxumo iyo ciil iyo cadho laysu qabay iyo xaasidmiya wax la mida dhammaantood baa ka baxa markaynu laabfayoobida ka hadlayno dhan waa ka cibaada waa qurba ilaahay loogu dhowaado dhanna waa waxyaabaha sababa bulsho inay wada noolaan karto oo haddii bulshadu xanuunada laabfayoobida cagsigeeda ku ah kasoo horjeedkeeda ay ku dhacaan oo ah ciilqab iyo uurxumo iyo isqabsi hadday ku dhacdo bulsho jirta ma noqoto idan qadiyadda tan inta badan waxaa laga waramaa muuqaalka sare laakiin waa qadiyad ku saabsiisan quluubta iyo inta qarsoon oo ah xaqiiqa ahaan meesha rabbi eego aadanuhu inta badan wuxuu jecel yahay muuqaal qurux badan in lagu arko qofna ma jecla subaxii markuu soo tooso isagoon toilet kaba gelin inuu suuqa usoo baxo qofna ma jecla waayo wuxuu diidan yahay isagoo fool xun inay dadku arkaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wejiyadiina ma eegayo meel kaluu rabbi leeyahay anigu halkaasaan eegaa quluubtiina iyo acmaashiinaan eegaa ka waran adoo qalbi fool xun la soo kacay ama la soo toosay oo rabbigaa hortiisa isla taagay aakhirana qalbigaa nabadqabkiisa iyo caafimaad qabkiisa oo keliya lagu badbaadaa sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalinta aan adduun wax tarin qof ula yimaada mooyaane rabbigii qalbi caafimaad qaba bulshada muslimka ana ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu saxaabadii sifeynayay waxaa lagu tilmaamay muxamadun rasuulu llah waladiina macah ashidaaء cala alkufaar ruxamaaء baynahum taraahum rukacan sujada yabtaguuna fadla min allahi waridwaana nebi maxamed waa ilaahay rasuulkiisii baa la yidhi isaga ammaan waxa ugu filan masaladaasoo kaliya inuu ku rabbi doortay yahay saxaabadase saddex sifa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala sifa waxa weeyaan xidhiidhka ilaahay la lahaayeen oo ilaahay wuxuu ku tilmaamaya taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwaana waxaad arkaysaa iyagoo rukuucsan oo sujuudsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshiisa iyo dheeraadkiisa raadcaynaya kaasi waa xidhiidhka iyaga iyo rabbigood ka dhexeeya makhluuqaadkan dunida kor saaran siiba aadanaha ilaahay laba qaybood buu u qeybiyey qayb waxaa la tilmaamay waa qayb gardarro badane waa rag iska dhiciya baa la yidhi adag oo iska dhiciya wax waa qolada gaaleed qaybta kalena ilaahay wuxuu tilmaamay mu'miniinta ah inay ruxamaa u yihiin dad u naxariista dad col isuma naxariistaan dad aan laabfayoobi isuma naxariistaan dad aan wanaagga isla jacalayni isuma naxariistaan sida awgeed ayuha alaxiba ilaahay markuu saxaabadii u manno sheeganayo manno sheegadku waa gallad sheegasho waxyaabaha nimcooyinkii rabbi siiyey markuu tilmaamayey ilaahay wuxuu ku tilmaamay nimcooyinka waaweyne la siiyey inay ka mid tahay wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmati ikhwaana waxaa xasuusataan nicmada weyne alla idin siiyey a markaa colka ahaydeen ee qalbiyadiina ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isu soo dumay nebi moxamed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala isna ugu gallad sheegtay ama ugu manno sheegtay oo rabbi wuxuu ku leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam koox qalbi caafimaad qabata wadataan ku siiyey baa ilaahay leeyahy ninka qaa'idka ee hormoodka ee dad hogaaminaya dad nabad qabuu hogaamin karaa laakiin dad qofba qof reebayo lama hogaamin karo mahmaa uu hogaanku fiican yahay ka inoogu taqisan haddaynu xagga sare saarno madax ka dhiganno suurtagal ma aha oo ma fududa inuu ina hogaamin karo
innagaan qofba qof rabin, gobolba gobol rabin, reerba reer rabin, dadba dad doonaynin, suurtagal maaha inuu ina hogaamin karo walow uu daacad yahay. sida awgeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nebiga ugu gallad sheegtay huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin waallafa bayna quluubihim low anfaqta ma fi lardi jamiican ma allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum. ilaahay waa ka kugu gargaaray baa la leeyahay nebi maxamedow nasrigiisa iyo wa bilmu'miniin koox mu'miniina, kooxdaasi oo ilaahay qalbigooda walaaleeyo isu dumay baa la leeyahay. haddaba ayuha alaxiba, walaalnimada la sheegaya islaamnimadu ma timaado iyadoo quluubtu bugto oo caafimaad aanay qabin. waxaa loo baahan yahay xanuunada badan ee ilaahay kitaabkiisa uu ka warramayo, alghillu walxaqdu walbagyu walxasadu, waxaasoo dhan in laga caafimaad qabo. soomaaliga inaanan kuba wada garan baa suurtagale. waa waxa laaliya wixii uur xumo iyo uurku taallo iyo xaasidnimo iyo caloosha wixii dhibo oo dhan. qofka muslimkaa 3 meelood unbaa meel laga rabaa inuu deganaado, inuu ka hooseeya marnaba sharciguma soo dhoweynayo. martabad iyada waxaa gaadho oo qura dad gaaroo ilaahay doortay, waa martabatu liithaar. naftaada inaad nafta walaalkaa ka horu marisaa, iyadu waa martabad dad gaara uun. ilaahay uu qur-aanka ku tilmaamay wayu'thiruuna calaa anfusihim walow bihim wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa. martabad labaad ayaa jirtoo ah walaalkaa waxaad naftaada la jeceshay inaad isna la jeclaato, an tuxiba liakhiika maa tuxibu linafsik. martabad ka hooseysaa jira labadaaba, waa tan aynu ka warramayno. waa qalbigaagu inuu caafimaad qabo, at least inaad bukin, ugu yaraan inaad ahayn qof cuqdad iyo ciil iyo cadho iyo xaasidnimo qaba, ugu yaraan inaad noqoto qof laabtiisu ay caafimaad qabto. maanta masaa'il baa jira dadku ay fudaydsadeen laakiin aynu midhaheedii hayno. maanta caalamulislaami dhammaantii dhib baa ka taagan. ma aha inuu dadka ka xoolo yaryahy, ma aha inuu dadka ka caqli yaryahy, ma aha inuu dadka ka hobi yaryahy, waxaasoo dhan maaha. ilaa nuclear weeban bay haystaan. laakiin waa maxay xaqiiqada jirtaa? waxa weeyaan waa inay laabuhu bukaan, dabeetana ninba nin rabo inuu reebo, ninba nin uu rabo inuu ku ciil baxo, midba miduu baga leeyay jabkiisa. mujtamac noocaasina afraad ahaanna ma guulaysto, midhmidh uma guulaysto, koox kooxna uma guulaysto, dowlad ahaanna uma guulaysto. walidaalika caalamulislaami waxa yaalla waa uurxumada muslimiinta dhex taalla ayaa midba mid reebaya. meel kastoo dagaal ka dhacayo, gaalada qaar baa la safan, qaar baa dhan kale u safan, dhammaantood baa colaada iyo uurxumadu dhex taalla. dad badan oo maanta muslimiina waxay ku dhawaaqayaan war hala midoobo, oo soomaalidu ugu horeyso. soomaalidu way soo kartay, dhib tiro badan baa soo gaadhay. in rubuc qarni ka badan ayay dhulka taallay. hadda dad badan baa waxay leeyihin aan dib u midowno, dib u midowno. haddaynu bukno miyaynu midoobi karnaa? su-aashu waa taa. haddaan laabtu caafimaad qabin miyaad midoobi karaysaa? haddii xanuunada tani, idan kelimatulmuslimiin inay midowdo waxaa ka horeeya caafimaad qabto, in dad wax wada yeelan kara ay noqdaan. qof kasta oo raba inuu ku dhawaaqo midnimo iyo guul iyo walaalnimo iyo dadna waxaa ka horeysa inuu ku dhawaaqo in dadkan iscafiyo oo isasaamaxo oo laabta bukaanka ku jira inuu soo baxo. qofkii laabtiisu caafimaad qabtaa ka fardan, qof qura xataa hadduu yahay, wuxuu seexdaa isagoo caafimaad qaba, isagoo aan noloshiisu warwariyo tiiraanya lahayn, isagoo aan laabtu huraynin. dadka badh baa waxay seexdaan iyagoo cadho la gamila. maalinba warka yare uu soo maqlo ama fadhidu ku dirarka inta laga lahaa hurdadaba ka qaadaa.
isagoo ciil qabu sariirtiisa tagaa. haddaba waxaan leenahay qofku hadduu calooshu bukooto ma noqdo qof bulshada la noolaan kara. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu nebi ibraahim inooga warramay baryadiisii fiirso, nebi dhan oo rabbi soo diro oo ilaahay baryaya muxuu leeyahy walaa tukhzinii yowma yubcathuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. ilaahayow hay hoojinin buu leeyay maanta dadka lasoo saarayo maalinta aan xoole iyo caruuritoona wax tarin, maalinta qofka quree badbaadaya uu yahay qof caafimaad qaba laabtiisu. culammadu waxay yidhaahdaan meesha tan markay joogaan waxay yidhaahdaan salaamatu lqalb waa laba shay. midna waa salaamatu lqalb laga qaado inaad shirki iyo xumo kale ku jirin, laabtaadu inay ka caafimaad qabto gaalnimo iyo qurunkeedo ilaahay towxiidka aad u khaalis yeesho. midna waxay yidhaahdaan waa salaamatu sadri ah in makhluuqaadka siiba dadka mu'miniintii inay kaa nabad galaan oo aanad maxay wax laab xumo iyo dhib aanad hayn. walidaalika ibraahim, nebi ibraahim ilaahay qur-aanka markuu ammaanayey waxaa la yidhi waina min shiicatihi la ibraahim id jaaa rabbahu biqalbin saliim. nebi nuux kooxdiisa waxaa ka mida baa ilaahay yidhi, dadka jidkiisii haya nebi ibraahim baa ka mid ah. id jaaa rabbahu biqalbin saliim baa ilaahay yidhi, markuu rabbigii ula yimi qalbi saliima. idan ayuha laxiba, in qalbigaagu caafimaad qaba aday kuu tahay caafimaad qab, aday kuu tahay caafimaad qab. walidaalik aakhiro dadka jannada ku jira nicmaysanaya xanuunka ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu sheegay inay ka caafimaad qabaan. macnaheedu waxa weeyaan nicmadii jannada inaanu dhadhaminaynin qofka laabtiisu ay nooca kan tahay. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy haddaabay dhacday in dhibi jirto janno ilaahay u qoray kuwa laga siibaa buu noqonaya. wanazacnaa maa fii suduurihim min gil ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin. waxaanu ka siibnaa baa ilaahay yidhi wixii laabtooda uu xumo ku jiray, wixii xumo ku jiray. macnaheedu waxa weeyaan saaxibu nicma maaha qofka laabtiisu bugtaa, xataa fi dunya markaa kuma aha. haddaad rabto ahlu jannuhu siday u nool yihiin oo kale inaad u noolaato adoo adduunka jooga, noqon maxay mid laabtiisu caafimaad qabto. bini aadamku markuu loolanka galo, tartan wax ka mida markuu galo, sawaa inuu siyaasad ku tartamo ama inuu tijaarad ku baratamo ama inuu tacliim iyo cilmi ku baratamo, xataa mararka qaarkood dacwo iyo sheegisteed inuu ku baratamo. qur-aan la dhigayo iyo malcaamado iyo dacwo iyo wax la sheegayo, majaalaat ilxayaat oo dhan isku dar. dadku mararba qalbigoodu uu soo galaa markaa nooc min gili iyo xaasidnimo iyo wax iska dhicisku. waxay yidhaahdaan salaamatu sadriga waxaa ugu dhib badan inta isku xirfadda ah bay yidhaahdaan. inta isku xirfadda ah ayaa marar badan waxaa dhacda inaanay isu laabfayoobin. maalan kooxda siyaasadda ku wada jirta waxaa laga yaabaa inay waxoogaa isku dhinayaan oo isreebayaan. kooxda tijaarada ku wada jirta waxaa laga yaabaa inay waxoogaa isku dhinayaan. kooxda tacliimka waxaa laga yaabaa kooxda wadaadnimada ku jirta intii alla badbaadiye mooyaane inay isreebayaan. wadaad sareedaayo kooxda qur-aanka dhigta waxaa laga yaabaa malcaamiba malcaamad nawcun ma inay reebayso. laakiin maxaa loo baahan yahay? waxaa loo baahan yahay qofku inuu nadiifiyo qalbigiisa, inuu soo jeedo, inuu is ogaado, inuu ogaado war maxaa kugu soo biiray, walaalka iyo adiga maxaa idin dhex maray. meel waxaa lagu yidhi ku dagaalan oo yaan cidi kaaga hormarin, waxa kaloo dhammina musaamaxa lagu yidhi. meeshee lagu yidhi ku dagaalan, jannada yaan cidi kaaga horeyn. limithli hada falyacmal ilcaamiluun walyatanafas ilmutanaafisuun. sida ogeed bay culammadu waxay yidhaahdaan qurubaadka iihaarku kuma jira way culamo badan ay qabaan. waxaa naftaada laga horumaray qurubaadku kuma jiraan, wixii alle loogu dhowaanaya. maalan safka horaa meele ka bannaantay, adaa aw hebelow safka hore gal lama yidhaahdo. adba jannada waad u baahantahy, aw hebelkaama janno jecla, sacankaa maaha, adaa janno u baahan. idan qurbada ilaahay u dhowaanshihiisa cid la yskama horumariyo. hebelow adigu xagga alle iga mar lama yidhaahdo, xagga alle adigu u dheeree.
xagga adduunkaa la iska horumariya adduun markuu wuxuu yahay adduun ku saabsan yahay baa cidda kale la iska horumariya laakiin markuu ku saabsan yahay ilaahay u dhawaanshiyihiisa walidaalika buu nebigu wuxuu leeyahay safka hore haddaa ogtiin waxaa ajar ku jira intaa isku qabsataan waa maxay waa laydin qori tuuri lahaa saa uu nin waliba u rabo ninka kale inaanu u banaynin waa qori tuur baa ka dhici lahaa buu nebigu tilmaamaya idan markay arrintu janno iyo ilaahay u dhawaanshiyihiisa tay isku day inaan lagaa dheeraynin markay baab adduunyo tahay qalbigaaga dib ugu noqo waxaad u baahan tahay in badan maxay salaamatu sadr waayo hadday laabtu bukooto balaa ka dambaysa waxaa ka dambeeya xanuunadan ka warramayo oo dhan ee xaqdi iyo xaasidnimo iyo ciil iyo urkutaale iyo urxumo oo dhan baa ka dambeeya waxaa ka dambeeyo intaa kaaga daran in xataa acmaashii adduun ama laga aqbali waayo ama ilaahay toobad kaa aqbali waayo مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وحولي حديث كمسلم ورينيو البابة الجنة وحا لفرا خميسة يو سنينها ومالمو نبي سومي جرين تبضن حانو نقانا رمضان ناين لفرا هذه يقول صون تيا البابة دا فرشتو دو بدن بار نصوص دسكو حدا البابة دا عرك يا كو الجنة وحا لفرا محي مالمها كان فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلهي وحو دنبغيسا dhaafaa qof kasta oo mu'min oo ahlu tawxiid ah laba laakiin ilaahay wuxuu dhahay iyaga arrinkooda dib u dhiga waa ayo كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنذروا هذين حتى يصطلح لبا ولا لو إسصرنا ورحمة جرتي iyaga waxa la yiraahdaa dib u dhiga marka adduun qura waay maysid adduunyadu dahab marka cidhiidhiga gasho waa luntaayeen colaad iyo baliya baas ma ka rabto laakiin adduun qura waxaad waayeysaa ma aha waa maxay dambi dhaafka allaad waayeysaa sida ogaad waxa fiican ilaa man ata allah biqalbin saliim buu quraanku tilmaamaya ma liibaana aakhiran in la yimi qalbi caafimaad qaba mooyaane xaasidnimada iyo xaqdiga iyo colaadda iyo reebninku bal fiiri ama daymood ama dhugo ama eeg inta waxa uu inaga reebayo inta dhiba uu kuu geysanayo dadka laabtoodu caafimaad qabto nebi maxamed wuxuu ku tilmaamayaa jannada sufuufta hore inay ka mid yihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy kooxda ugu horreysay jannada gelaysa sida leylatulbadriga 14 dayaxoo ah ayay u galaan kooxda ku xigtaa buu nabigu yidhi xidiga ugu iftiinka badan la sidiisoo kale iyagoo u muuqda ayay galaan kuwan calaamadoodu waa maxay wuxuu nabigu ku sifeeyey quluubuhum calaa qalbi rajulin waaxidin la ikhtilaafa baynahum walaa tabaaqud kuwan qalbiyadoodu waa sidii nin qura baa ilaahay leeyahy oo wax khilaafa iyo wax isu cadhays iyo kuma jiraan idan waa dad laabfayow baa la leeyahay kuwan jannada xagga hore ka gelayaa buu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam deetana wuxuu sii sifeeyey waxay nimco helayaan oo dhan xadiid imaamu axmed uu wariyo dadku inta badan laga yaabo inay maqleen aimada qaarna ay tasxiixiyaan sheekh ilalbani raxmatullaahi calayhi intuu markii hore tasxiixiyey marka dambena uu isagu ka noqonayo tadciifinta uu badanayo xadiidkan culamo hore badan oo ku horreysayna tasxiixisay wuxuu sheegayaa waa xadiidkii maxay anas ibnu maalik uu warinayey ama riwaayadka qaarkood calaa kulli xaal xadiidka macnihiisu wuxuu sheegayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii oo fadhiya ayuu wuxuu nebigu yidhi waxaa idiin soo gelaya nin ahlu jannah ka mid a nin nooloo soconaya buu nebigu leeyahy ahlu jannah ka mid a dabeetana nin baa yimi ansaariya oo garhkiisa weysadii ka da-ayso oo labada kaboodna bidixda ku sita maalin dambe ayuu haddana nebigu yidhi nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya isla ninkii uunbaa soo galay mar saddexaad ayuu haddana nebigu yidhi nin ahlu jannah ka mid a idiin imanaya haddana ninkii uunbaa soo galay saxaabi cabdillaahi ibnu camar ibnu caas la yidhaahdaa wuxuu is yidhi waar bal ninka kani wuxuu rag ku dhaafay ee loo leeyuun markuu soo galayaba nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya bal raadcee dabeetana waxoogaa marmarsiiyuu u samaystay inuu martigeliyo ninkii wuu martigeliyey 3 habeen buu la seexday ninka gurigiisii habeenkii markuu la seexanayo bal ninkan wuxuu ilaaliyaa wuxuu qabto cishuhu tukadaa wixii ugu tira alla u qoray salaad buu iska tukadaa waa iska seexdaa
habeenkii saqda dhexe markuu baraarugo isrogaba waa tawxiidsadaa waa istakfurlaystaa yani waa dikriya nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya qofka waysaqab ku seexda ee habeenkii markuu soo kaco subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah idhaha allahuma akfir lii ilaahay dembigiisa waa dhaafaa markuu habeenkii toose isrogrogayo adkaartaa yar kooban akhrista ilaahay dembiga waa ka dhaafaa ninkan intaana waa sameeya 3 maalmood markay dhammaatay ayuu wuxuu ku yidhi cabdillaahi ibnu camar warniya waxaan rabaa bal inaad ii waranto salaada subax markay soo dhowdana wuu kacaa unoo dee fajriga dadka siday u tukanayeen buulama wuxuu hi niyow wax dhibi ma jirin waxaanan kuugu imi inaan ogaado waxaad qabato camal weyn oo gaaroo lagugu tilmaamana maan arag ee maxaa halkan ku gaadhsiiyey nebi maxamed sheegaya ii sheeg nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leenahay ahlu janna ah dadkiina ma arkaba inaad ka acmaal badan tahay waxa aad qabataay wax ii sheeg buu ku yidhi wuxuu ku yidhi intaa aad aragta mooyaane wax kale ma sameeyo isagoo la yaaban markuu isiri dhaqaaq buu u yeedho wuxuu yidhi laakiin mid aan kuu sheego qof muslima gish iyo khiyaamo kuma sameeyo wax xaasidnimo iyo waxaan laabta ugu hayaana muslimiinta ma jiraan cabdillaahi wuxuu yidhi haadihi alatii balagat bik wahiya alatii laa nutiiq waar waa tantaad meesha ku gaadhay buu yidhi annana aanu kari weyn in laabtaadu nadiif tahay oo aanad cidna laabxumo ugu haynin waa mas'aladan buu leeyahy mas'alada idan ayuha alaxiba waxaan leenahay ahlu janna wanazacna ma fi sudurihim min gillin ikhwanan cala sururin mutaqaabiliin wanazacna ma fi sudurihim min gill tajri min taxtihim alanhaar ilahay baa ku ammaanaya taabiciintii waladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana walikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan haddaba inaad laabfayoobaataa adiga caafimaad qabbay kuu tahy waxaad seexanaysaa adoo miyir qabo caafimaad qabo wax dhibi ku hay adoo ciil qaba haddaad tiraahda seexana gamiba maysid 9 jeer baad hurdada ka toosaysa iyadoo kolba maskaxdaadu ay soo celinayso warku taalooyinka iyo wixii dhibku haysatay waxaad ka badbaadaysaa colaadaha iyo dhibtoo dhan walidalik qur-aanka u fiirso ambiyada ilaahay markuu sifeynayo waxyaabaha lagu sifeeyey ugu waaweyn waxaa ka mid a inay dad laabtoodu nadiif ahayd yani waa min sifaat alambiyaa haddaynu nebi ibraahim ku tilmaamnay id jaa rabbahu biqalbin saliim nebi maxamedna anas ibnu malik xadiidku warinaya waa kale man taqama linafsihi weligii ma aargoosan macnaheedu waa maxay madax ciil qabta hadday dad hogaamiso waa la jabaa nin isla aargoosa ama reer ribal xabaal ama kuwa garbi ama siyaasiyiinta intan kale xabaal ama nin ciil qaba hadduu madax noqdo waa laguma guuraan nin laakiin laabtiisu caafimaad qabto dadka inuu kor wado socda hadduu yimaado waxbuu hogaamin karaa walidalik ambiyadu waa qaadat lumma waa dadkii bulshooyinka adduun soo hogaamiyey waa hogaanadii ilaahayba doortay de hogaannimo loo doortay walidalik baa ilaahay nebi maxamed wuxuu ku tilmaamaya man taqama linafsihi abad weligii ma aargudan nin intuu hogaaminaya ka aargudanaya muxuu soo kordhin weligii ma aargudan baa la yidhi nebi maxamed caasha waxay ku tidhi ridwaan ullaahi calayha wa can abiha maalin uxud kaaga dhib badan miyaad aragtay ilaahay rasuulkiisiiyo dabeetana wuxuu yihi waxaan tolkaa kala kulmay malayn maysi markii layga saaray maka ee aan tegay daa'if ee haddana wax magaratada laygu diray dhagaxa laygaga soo saaray waan socday buu nebigu yihi ilaa iyo qarnu thacaalib meel la yidhahda markaan marayay baan baraarugay lama fiq buu nebigu tilmaamaya yani qofku markay dhibto ka badato waa iska socday unbuu nebigu leeyahy wuxuun baan kala gartay anigoo maraya maxay meel la yidhaahdo qarnu thacaalib markaan marayay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo geystay ayaa jibriil u dhawaaqay dabeetana wuxuu jibriil ku leeyahy in allaha qad samica qowla qowmika wamaa raddu calayk ilaahay waa maqlay tolkaa waxay kugula hadleen iyo waxay kuugu jawaabeen rabbina wuxuu kuu soo diray malagii buuraha maanta inaad amarto ee waxaad doonta amar malakuljibaal wuxuu yihi reer maka labada buurada hareere ka xigaan kor u qaadaya dushaan ka saaraya haddaad adigu amarto nebi maxamed calayh salaatu wasalaam makiina waa tii nebi maxamed tuntay ee magaalada uuga baxay
قال هدي كدشو ملك لغو صدر ما حد يلي له لو منها كريب من صوم هذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول قالها وهم قال هذا كساري وربتها قبصتي وكويك للسؤريين أيها حلي بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء ما إلهي بكر جغبه إنه دبردو ضيق صاره كو إلهي كرجي عابد التوحيد سده وأن عنده شركيه أمل كاسو قباه استقبل مدوبي ومن موضوع إنك سؤال ديدي قلبي سنة ما بكاه وأرقصه يعني منكي وحكو وسميي أنا آخركه به maaha ee aadanaha inuu naar ka badbaadiyo guntigaan idan hayaabu nabigu leeyahay naartan idinka xijinaya idan xagga naarta u siyaacaysa saadaradeed maalintii Uhud markii dhibtu soo gaadhay uu godka ku dhacay ee koofiyadii gashay ee ilga hoose laga jabiyay salaadihii fadhi uu ku tukaday dhibtu qabsatay ayuu nabigu wuxuu Allah maxay yeeli dul wajigoodii dhiiga sa uga daadiyay maxaa xaalkood noqon ara alla way badantay إلهي بقرآن سودة شيء ليس لك من الأمر شيء تبعتنا وحلي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يحبقرا ما يعني قال دي إلهي لي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين كو إلهي يريد ويكاسو صارين iyagoo rabay inay ama ku xidhaan ama ku dilaan ama ku bixiyaan go'aanka ku qaatay inay dilaan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo badbaadiyay ayuu isagoo 8,000 oo ciidan u yimi wata xaafilaysa buu ku yiri waxay raahdeen akhu karim wa ibn akhu karim mu argosan nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam wuxuu ku yiri la tathriba alaykum al-yawm anani korkiina ma aha iska taga إذا dadka hogaaminayay saasay u fikirayeen qisada nabi yuusufna in badan baa laydin ka warramo nabi yuusuf walaaladii oo god ku riday oo xidhay oo dhib u geystay oo haddana masabiday oo yidhi kan yari hadduu xaday walaalkiiyo ka weyn baa tuug ahaan jiray waa yuusuf ka hortaagan ayay leeyihiin walaalkiiyo ka weyn ayaa tuug ahaan jiray ayuu haddana iska cafiyey تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين مركو كيري لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يعني لا بتمو بكين يو قد مريدي وأبيه لك حيي أو دونسي قالي أو حبسي سو قالي أو سو رفاضي نولشي سقيب كم دو سنوات حبسي قولوا بضع سنين تضرب سنة واحدة بدن كتيري intaasoo sanadood baa la adoonsanayay god cidlaabu waxaasoo rafaada walaaladiisii soo mariyey ayaa u yimi iyagoo baahan isagoo madaxa markaasay haddana isagoo madaxa oo aanay garanaynin weli caayayaan oo leeyihin kan yare hadduu xaday mid hore ay walaalahaayeenoo tuugaa jiray markaasuu ka xishooday inuu yidhaha war idinkaa tuuga idinkaa xumaa oo god igu riday waa cafinaya haddana wuxuu leeyahay dambi korkiina maaha bal waxay culimadu yidhaahdaan wuxuu ilaaliyey khawaatirtooda oo markuu ducaysanayay xataa ma odhanin ilaahay ana jeelkayga soo saaray idinkana abaarta idinka keenay ilaa abaar baa ku dhacday labadaba waa asturo kaana waa iska dhaaf ilaahay godkayga soo saaray ma odhanin wuxuu yidhi ilaahay jeelkayga godkayga ma xun god cidlaa baa xun jeelka dadba ku noole god cidlo laba dagaa haddii lagugu rido dee jeel ka daran laakiin isagoo rabbi rabo wuxuu nimco siiyey inuu ka warramo ayuu wuxuu ilaaliyey khaatirka walaaladii godkaayo haddii la sheego dee walaaladii xaalkoodii baa soo baxaya dabeetana uu iska daayo gaaladu intay u geysatuu sheegay ilaahay anigana jeelka iga soo saaray idinkana mu odhanin abaarta idinka keenay wuu asturay idinkana baadiyaa idinka keenay buu leeyay yani wuxuu diidan yihin wax hangaruufo ah isaga iyo walaaladii maxay inay dhex maraan min bacdi an nazaqa shaytaanu baynii wa bayna ikhwatii mu odhanin markaa dhibta ii geysateen markii aniga iyo walaalkay shaydaanna dhex maray buu leeyahay aniga iyo walaaladay shaydaanna dhex maray idan waa nebiyadii malaha waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan dee anagu ma nebiyaanu gaadhayna qaaraan nebi ahayn aan ka warramo oo qur-aanku ka warramay
إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحو كقوى الرمية قصة هوري في سورة ياسين واضرب سورة ياسين إلهي وحو كقوى الرمية صدح رسول ومقال الله دري رسول بالله دري كسي بينيين مد لباد بالله قد دبا دري كسي بينيين mid saddexaad baa laga daba diray 3 rasuul baa la beeniyey 3 rasuul markii la beeniyey ayaa ilaahay quraanka wuxuu kaga waramayaa nin kale oo aan isaga rasuusha ahayn وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون إلهي وحول مقالة حقا وقدام بيسا وحكي منين وقهرين nin goobta joogayba ma ahayn warkaa gaadhay in nebiya la diiday dabeetana wuu isxilqaamo xilmuu isa saaray halkaasuu ka yimi baa ilaahay yidhi waxaa kaloo ilaahay u raaciyey qaabkuu yimi ma ahayn nin caajisa ee isagoo rooraya oo inuu arrintaa wax ka qabto raba ayuu yimi baa ilaahay yidhi wajaa min aqsa almadiinati rajulun yascaa wuxuu ihi waar tolkayow waa raaca rasuullada cid aan waxba idinka doonaynin idinna hanuuninaysa aadanuhu inta badan soomaalidu maxay odhan jirtay wadaadka wacdigiisa waxaa ka dambeeya maxay waxisi markaa wacdigan hore dadka mari maayo mar haddaad waxisi la daba taagantay waa kollay dantu wataa uma waxii dhiiba weeyaan kan ilaahay wuxuu ku sifeeyey inaanu taa wadanin wuxuu leeyahay waa raaca rasuullo idinna hanuuninaya waxna aan idinka doonaynin aadana haddii xagga jeebka laga maro wasgeejiyaa qofkaad rabto qalbigiisa inaad furato inta badan ha isku dayin jeebkiisa inaad furato dabeetana waxaa rabbi ku yidhi waa diideen isxilqaamku intuu leegayna u fiirso 3 rasuuloo la diiday ka warran innagu waxaanu idhahaa wadaadadii baa jooga oo idinka maxilka idin saareen markaa muxuu yihi ninkani meel 3 rasuul joogto ayuu iska xilqaamayaa wuxuu iska xilqaamayaa inuu qaban karo dadka inaad tidhaahdo war wacdiga dhegaysta war kaalayo diinta dhegaysta uma baahna wadaad war khamriga iska daa war zinada iska daa war salaada tukada war rabbigii ka baqa war wanaagga laga shaqeeyo uma baahna wadaad nin walba muslim uu garanaya laakiin isxilqaankaa yaraaday dabeetana hal wadaad ama muxaadaro jeediya ama imaam kelmad yidhaahdaa diintii baa laga dhigay asalkuna wuxuu ahaa dadka muslimiinta oo dhan inay diinta iska xil saaraan waxaa gaalay idinka idin sugayaan aakhire su-aashooduna khatar weeyaan inay yidhahdaan ilaah way nala joogeen oo jeebakaygay baadhan jireen waxba noomay sheegin way noo soo hunguri doonteene diinba noomay sheegin waa su-aal khatara ninkan ilaahay wuxuu yihi meel fog buu ka yimi isagoo roorayuu yimi caynkaasaanuu yimi haddaba intaasoo dham iyadoo cajaba wax kasii cajab badan baa ilaahay sheegay waxay culammadu yidhaahdaan ninkani mabdi'iisi buu casdaystay wamaa lii laa acbud maxaa aniga aan u caabudi waayo rabbiga iyo cidka mabdi'iisii oo dhan buu caddaystay kadibna isagii bay dileen waa la dilay meeshu meel sahlan maahayn meesha ninkan iska taagay waa meeshaa keensatay in la dilo waa la dilay ilaahay intuu ifka joogay warkiisii wuu inoo sheegay aakhire markuu tegayna ilaahay baa warkiisa inoo keenay haddana warka aakhire ka cajab badan ilaahay wuxuu leeyahay qiila dkhuli ljanna war jannada gal baa la yidhi markuu diinta usoo dhintay dabeetana wuxuu leeyahy qaala yaa layta qawmii yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajacalanii min almukrimiin yaa layt alla jeclaan lahaayee buu leeyahy tolkay inay ogaadaan oo og yihiin sida rabbi igu dambi dhaafay iyo sida lay karaamay kuwii dilay buu weli khayr la rajaynayaa laabtaan bukin kuwii dilay ayuu khayr la rajaynayaa adigu hadday gaala ku disho oo dad diinta diidan ay ku dilaan oo had aakhare qabato oo ilaahay wax ku weydiiye maxaad odhan lahay waxaa laga yaabaa inaad odhan lahay bal jannadu horta hay dambaysa raggii aanu shaynay rabbo godka naareed ku hobi laakiin ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa ninkan aakhiro jooga markii horena meel fog buu ka soo cararay inuu dadka diin u sheego iminkana isagoo dhintay ayuu wuxuu leeyahay alla tolkayaa u sheega sida rabbi ii nimceeyey igu dambi dhaafay iyana ha islaamaan weeyaane taa macnaheedu waxa weeyaan waanu ceel qabin si kale haddaynu tilmaamno waxa weeyaan laabtiisa caafimaad qabtay taasaa waxay sababtay
inaanu dareemin waxaan oo dhan waxaa quraan iyo axaadiis badan ku soo arooray abubakar qisadiisii uu ninkii mastax ibnu athaat yidhi waxbaan ka jarayaa ee ilaahay subxaana watacaala yidhi iska cafi walaa yatali ulu lfadli minkum wasaca an yu'tuu ulu lqurba walmasaakiina walmuhaajiriina fi sabiili illah waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuun 44 aayadood wax ku dhadhow baa qur-aanka ku soo arooray oo masalati alcafwi wasafxi ka warramaya in dadka la cafiyo ama la dhaafo ama aan wuxuu loo qabanin ka warramaya soo arooray labadan aayadood mala aan idinku khatimo ugu horeyn bulshada muslimka ah hadday laabto caafimaad qabto colaadidee ma jirto colaadi waxay timaadaa maxay markay laabtu bokooto soomaalidu maxay tidhaahdaa gacantu intaanay xumaan afbaa xumaada afxumaa ka horeysa maxay gacanta hadday laabtu caafimaad qabto dadku nabad buu ka shaqeeya colaadaha iyo dhibti iyo mashaakil uma timaado sida awgeed baa ilahay wuxuu ku tilmaamaya dadka mu'miniinta inay yihiin mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim dadka mu'miniinta isu hilowgooda iyo isu naxariisadkooda iyo isjacaylkoodu wuxuu la mid yahay sidii jir qurah oo qaybe hadday xanuunsato qaybta kale soo jeed iyo xanuun ay la qabto haddaba ba labadan aayadood ila fiirso labadan aayadood waxay ka warramayaan qiimaha ay leedahay laabtu inay caafimaad qabto mu'miniintuna xooggoodu inuu mas'aladan ku xidhan yahay ilahay wuxuu leeyahay haddaa idinku laabtiinu caafimaad qabto waxa gaale iyo munaafiqiini mareegayso oo dhami waxba idinma yeeli karaan haddaydan see laabtiinu caafimaad qabin idinkaa isdiliyo isku madhanoo kuwa kalena way idin gumaysan markaa waa laba aayadood qur-aanka tilmaamaya aayadda koowaad ilaahay wuxuu leeyahay in tamsaskum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shaya in allaha bima yacmaluuna muxiit gaalkiiyo munaafiqa ilaahay wuxuu yidhi haddii wanaag idin haleelo way ka xumaadaan hadday dhibi idinku dhacdana way ku farxaan waa calaamada gaalka iyo munaafiqa lagu yaqaano ka waran adigoo muslima haddaad saa noqoto haddaad reer hebel marka la gumaadana faraxdid markay guulaystaanna naxdid muslimiintu markay guulaysato naxdid gaalku markuu ka guulaysto faraxdid waa sifadii gaal iyo munaafiq ilaahay ku sheegay baad adigu qaadatay si awgeed baa ilahay wuxuu leeyahay kuwa gaaleed iyo munaafiqeed haddii wanaag idin haleelo way ka xumaadaan hadday dhibi idin haleeshana waa ku farxaan kaasi waa iyaga iyo qaabkay u fikrayaan laakiin idinka maxaa dhacaya tattaquu haddaa idinku sabartaan ilaahina ka cabsataan oo walaalnimadiin iyo alla ka cabsigiina uu jiro laa yadurukum kayduhum shay-a waxa ay dhib wadaan oo dhami waxba idinma geysan karaan u fiirsa aayadda qur-aan hadda laa yadurukum kayduhum shay-a baa ilahay yidhi waxa makri iyo ay xadhig wareeg wadaan oo dhan waxba idinma yeeli karaan waayo in allaha bima yacmaluuna muxiit baa ilahay yidhi waxaan ay wadaan ilaahay waa ogyi ilaahay baa koobay baa la yidhi ka seexda haddii laakiin cagsigu uu dhaxo maxaa dhacaya ilahay wuxuu qur-aanka ku leeyay waatiicu llaha warasuulah alla iyo rasuulkii aqbal waa jidka walaalnimo iyo calolfayoobaad iyo waxaan idinku dhacayaan walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu in allaha maca saabiriin ilahay wuxuu ina leeyahay alla iyo rasuul baa adeeca war nisaaca iyo isqabsiga iska daaya nisaac iyo isqabsigu wuxuu yimaadaa markay dee laabta xumaato dabeetana waa la isqabsadaa maxaa ka ratibmaya markii hore maxaa la yidhi wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a markana maxaa la yidhi markay laabtii xumaatay colaad iyo dagaaladu dhexdeena ka dhacaan fatafshaluu watadhaba riixukum baa ilaha yidhi kelimatu lfashli fi luga dacfigaa la yidhahdaa waa liidan doontaan dowladnimadiina iyo xooggiinuna way tegi doontaa baa ilaha yidhi maanta caalamulislaami maxaa ka jira marka hore calooshaa xumaatay
kadibna waa la isqabtay, kadibna waa la isdilay, kadibna gaalkaa loo kala dheereeyey, kadibna waa la daciifay, kadibna dowladnimadii baa la waayey, kadibna waa layna gumaystay. markii horena waxaa layna yidhi laa yadurukum kayduhum shaya, markana waxaa layna yidhi maxay? fatafshaluu watadhaba riixukum. haddaba ayuha alaxiba, qof ahaantaada markaad tahay, haddaad rabto inaad caafimaad qabto, jaamacadda Leeds agtiina ku taala, professor ka mida wuxuu iclaamiyey inuu dhigayo course ku saabsan caafimaad qabta laabta iyo dadku inay iscafiyaan iyo musaamaxa. oo dabeetana wuxuu leeyahay xanuunada ugu badan ee bini aadam ka dhaca cuqadka nafsiga ka dhashaan buu leeyahay. haddii dadku laabtoodu caafimaad qabto, caafimaadkaa faafaya. courska markiiba saacaduu ku buuxsamay baa la yidhi, dadkuba waa bukaa. yani waxaan leenahay intaan Leeds iyo meel kale laynooga sheegin, ilaahay baa wuxuu inoo sheegay hadday laabteennu caafimaad qabto, kow inaynu inagu caafimaad qabayno. hurdo fiican iyo calool fiican iyo cibaado fiican oo rabbi aqbalo iyo waxaad ku cibaadaysanayso rabbi kaa yeelo iyo dadka muslimiinta oo ku aqbala. dadku qofka laabta xaadhan lama colaadiyaan, laakiin tit for titkaba ayaa beledu ka dhacda. adna intan u geysa, adna intan kuu geysadu ma dhammaato. laakiin dadka musaalimkaa dadkuna wuu la nabadgeliyaa, waa badbaadiyaa, waa la musaalamoodaa. idan qof ahaantaada waad ku caafimaadaysa. hadday laabtaadu caafimaad qabto, waxtar bay kuu tahay diin ahaan iyo caafimaad ahaan, adduunya ahaanba. waa mar labaade ka bulsho ahaan jiritaankeennu wuxuu ku xidhan yahay in badan oo ka midi laabteennu inay caafimaad qabto. ilaahay baa inoo ballan qaaday haddaynu sidaan nahay oo sabir iyo taqwo iyo alla ka cabsi inugu jiro, kaydka cid kale waddo oo dham inaanu waxayna yeelaynin. haddiise aynu cagsiga nahay oo markaasi inagu isu xiniyo weyn nahay oo colaadii iyo cadhadu ina dhex taalo, in jabkani jirayo. waxaa markaa habboon qof waloo muslimiba meesha ugu habboona uu ilaaliyaa inay qalbigiisa noqoto. in allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa ajsaamikum, sida u egtiin iyo qoloftiina ilaahay ma eego, ee rabbi wuxuu eegaa ilaa quluubikum wa acmaalikum, qalbiyadiina iyo waxa ka ratibmee acmaasha ah ayaa rabbi eega. waxaynu u baahanay meesha rabbi eego inaynu tahirno. qur-aanka sifaadka ambiyada ay dacwaday wadaan waxaa horeysa wayuzakiihim. bale nebi ibraahim markuu ducaynayay qur-aanku siduu usoo naqliyey taskiyaduu dambaysiiyey. rabbanaa wabcath fiihim rasuula yatluu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba walxikma wayuzakiihim weeyaan. ilaahay markuu sheegay in dacwadaa u aqbalay, saddexda aayadooda kale ka waramaya taskiyaday horeysiiyeen. culamadu waxay dhahdaan lafta qur'aaniya baa ku jirta oo ah inay taskiyatu lquluub ka horeyso tacliimu lkitaabi walxikma. تلاوة الكتاب أي تبليغ يدوية. أما تعليم الكتاب والسنة أين كهر يسمحي تزكية القلوب. من قلبي هذا لا نذي فيه لا الرب أيه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بإلهي. وحلي باني عند نفتي سطهرتها. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. indhaha lama beelee waxa la beelaa baa rabbi leeyahay kuwa laabtaa la beelaa. laabta haddaad la-dahay indhahooda waxaa ka sokeeya indhamaha. laabta indhahooda waxay arkaan marka wixii rabbi jecel yahay. wixii rabbi jecel yahay ayay arkaan. waxa rabbi jecel yahay haddaad aragtana thawaabka iyo ajarkaad helaysaa kaala weyn wax kastoo lagu geystay. in dhib lagu gaarsiiyo adna aad intii goosato waxa ka ajar weyn. walaman sabara wagafara ayaa ka ajar weyn. ayuha alaxiba, kelmaddan qeybteeda hore waxaan kusoo koobayaa inaynu maxay
rabbigeen tala saarano oo uu ahaado waxa mudnaanta aynu siinaynaa laabteennu inay caafimaad qabto. وإلى درس آخر إن شاء الله تعالى بينك ورمي هدي وقت الله هلا إن لابتو عافمات قبت محاكو ساعدية ما الأسباب محي مركز سميسو أي نغونيس على لابتو عدوين هاد عافمات قبتها إن شاء الله تعالى وحين نكرر درس آخر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.